kalsooni wanaagba kalgacayla uuro kor u qaada nolosha وهبين تاريخية أو فرحات بدن أي كل هانتهاي خويس كان قضية وياهي عبد الرحمن iyo xaaskiisa ayaa dabcan waxay u bilaabanaysaa nolol farxad leh oo cusub kala duwan mid dad badan qaarkood ay aaminsanaayeen in qoyskan ay wajihi karaan waa bilowga nolol farxad ay ka buuxdo maxamed cabdiraxmaan mukhtaar iyo ruqiya cabdullaahi maxamed ayaa intii aanay midoobin naawilayay inay ku noolaadaan marka ay isku yimaadaan nolol qurux badan oo ka fog nuuc kasta oo dhib ah waxayna doonayeen in arooskooda uu u dhaco sida hablaha iyo wiilasha kale ee isguursanaya hadda waxaan u soconnaa dabcan guriga cusub oo ay degi doonaan maxamed cabdiraxmaan iyo xaaskiisa halkaasi oo ay uga bilaabanayso nolosha inteeda kale halkaan u soconno idinka la tacjabay waxaan nimid halkan oo ah hooygooda cusub محمد يروقيو طبعا هذا وحاول بناء نوهر مرلي وحنا هذا أي أصعدان قل كوضا أو أي كده كنا هوتيل هوتيل عصب وهذا لقى عن طريقة اسميسا هذين كانوا حلو صعب بقول لا يبقى لكم طلعت الحس ولا عباد يقول مركب مجال شوفيري وحنا مسؤولين بس لحد وثلاثين دولة الصومالي أو شيء يعني هل كان كم ورانا يعتني أنت عروس خرم ولا بيه لبضن عروس البادية أفر بقول إيش أنا كده كنا هوتيلك واو كورة ما قريب وقال وقروح بدون سماه طبعا صريرتي لما أنا فدي كله نربص أي سيدو كله طبعا داون كران أي وجاري هاي وقايب أي وحرن أرك كرتو حاجة وفدي قرض مرتدى أي وحي صوب بغض أي طبعا كان أي كلا شاهين ين سيدو كله مركب لا والله في سنين هل كان أي وقت ku qaadan doonaan xagana waa meesha gaar ku ah lamaanahan oo loogu magac daray kuwii qarniga waa maxamed cabdiraxmaan iyo ruqiye midka kale wuxuu u balan qaaday inuu naftiisa u hurayo inta ay nool yihiinna ay wada ceeshayaan dadka Soomaaliyeed waa maasiin dawladna way maasan tahay aasheeda waxaan ku balan qaadayaa inay cimriga la kadhiman inaan nolol fiican ku noolaan dadka Soomaaliyeed aad ay maasan إن شاء الله نكمل dadaalka lagu garab istaagayo waxa kaalin wanaagsan ka qaatay bulshada Soomaaliyeed dal iyo dibadba waxaana dawladda Soomaaliya ay ballan qaaday inay aroos qaran u dhigayso lamaanahan Munasar Maxamed Cabdi Dalsan TV Muqdisho